bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka idaacadda risaalo duhurtan idin hayso waxaa ka mid a xildhibaan ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo lagu deglay magaalada baydhabo iyo rabshado lasoo warinaya inay ka soconayaan magaaladaasi kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed oo dalbaday in laga hortago rabshadaha kasii soconaya magaalada baydhabo wadooyinka muqdisho oo xiran maalintii labaad iyo madaxweynaha dalka eritreya oo la qorsheynayo in soo gabagabeeyo safarkiisa soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dowladda qatar ku qanciyey in ay bilaawdo mashruuca dhismaha degada hobyo ee gobolka mudug odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo ka digay sii socoshada rabshadaha ka dhacaya magaalada baydhabo gudoomiyaha aqalka sare oo maanta u ambabaxay dalka turkiga ciidamada ammaanka sacuudiga oo toogtay tahriibayaal soomaaliya oo doonayay inay galaan dalkaasi iyo dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen oo heshiis hordhac xabad joojin ay ku jirto gaaray duhur wanaagsan mar kale waa jimco 14 bisha 12 Diseembar 2018 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararka idaacadda risaalo duhurtan idin hayso markan isagii oo dhammaystiran wariyaheena maxamed abuukar dabaashe ayaa warka duhur soo saaray aynu ku bilaawno iyadoo xaalad cakirnaan ay ka taagan tahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa lasoo warinayaa in xildhibaan ka tirsan maamulka koonfur galbeed magaaladaasi lagu dilay maxamed abuukar dabaashe ayaa wararkii ugu dambeeyay ee baydhabo eegaya axmed waad mahadsantahay xaalada magaalada baydhabo ayaa saacadba saacada ka dambeeda waxaad moodaa inay kasii dareyso hadda aan dhegeystayaasha la hadlayna magaalada baydhabo qeybo kamid waxaa ka soconaya dagaal u dhexeeya maleeshiya hubeysan oo taageersan wadaadka hadda la xiray mukhtaar robow iyo weliba ciidamada booliiska ee magaalada baydhabo sidoo kalena saakeedii hore magaalada waxaa ka dhacaya banaanbaxyo rabshado wata oo la arkayay dhalinyaro badan oo taayaro ku gubaya wadooyinka ugu muhiimsan magaalada waxaana soconaya banaanbaxyo sidoo kale boorar uu sawirka mukhtaar robow iyo weliba qoraal lagu soo xardhay ayaa la dhejiyay wadooyinka qaar ee magaalada oo ay dhalinyaro badan oo ka careysan xarigeeda ay sameynayeen hadda dhegeystayaasha la hadlayna qeybo kamid magaalada baydhabo dagaal ayaa ka soconaya waxaa qadka toos ugu jira wariyahana baydhabo ku sugan sayid cali sayid cali waa halkii meelaha ay dagaalada ka soconayaan dawaashi aad u mahadsan tahay maalinta labaad rabshado iyo israsaaseyn xoogan ayaa ka socota magaalada baydhabo xarunta gobolka baay hadda aan kula hadlayo waxaa socotaa weli israsaaseyn udhexeysa ciidamada booliska iyo kuwa dowladda federaalka oo ay kasoo horjeedaan masiyaad taabacsan ama taageersan sheekh mukhtaar robow oo xarag shalay loogu geystay gudaha magaalada baydhabo waxaa kasii daran maalinta shalay maanta oo waxaa si aad ah u socda banaanbaxyo oo guud ahaanba magaalada baydhabo ka socda marka laga reebo inta udhexeysa madaxtooyada iyo saldhiga degmada baydhabo walow maanta ay usii dheer tahay dad aada u careysan oo ay haween u badan yihiin iyo weliba rag ay banaanbaxayaan oo weliba saad adigu sheegtayba magaalada qeybaheeda kala duwan ay ku dhejiyeen ay ku taageereen sheekh mukhtaar robow guud ahaan iyo weliba faris magaalaha oo afridoodka oo horey ugu dhegnaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed qaadan ay ka bujiyeen islamarkaasna ay ku dhejiyeen sheekh mukhtaar robow ayagoo muujinaya inay ay taageersan yihiin sheekh mukhtaar robow weliba waxaa jira ciidamo oo ka tirsan booliska iyo weliba kuwa koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo soo gelaya iyagoo kasoo taga deegaano kale oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo weliba ay maantana magaalada baydhabo shir ay ku qabsadeen odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ayagoo muujinaya in doorasho aysan dhici doonin intii ay rabshadahan ka socdaan magaalada baydhabo sayid cali marka waa halkay meelaha waxyaabaha ay ka dhacayaan ma israsaaseen kooban miya mise waa dagaal waqti badan socdo oo ilaa hadda miyuu ka soconaya magaalada xaalada guud jabiga baydhabo bal haddaa sharaxaad guud naga siiso dagaalka inta badan waxa uu ka socdaa dabaashe aaga kusoo madaxtooyada iyo weliba saldhiga oo halkaasi laga ilaaliyo madaxtooyada walow meelo kalena ay jiraan oo ay u xiran yihiin ciidamada booliska iyo kuwa dowladda federaalka saad ogtahay saaka waxaa magaalada baydhabo lagu dilay gudoomiyaha baarlamaanka amniga cabdishakuur taasi oo sii cakaraysa amaba sii adkeynaysa in magaalada baydhabo weli ay kasii socdaan rabshadooyin iyo weliba israsaaseyn
israasateynta waxaad moodaa in ay keliya hal mar ay isku dhacdo kadibna inta kalena goos ay sii ahaato weli ay jiraan xabado weli kasii dhacayaan gudaha magaalada oo weliba taasi ay tahay meelaha kale ay joogaan booliska iyo kuwa federaalka oo ammaanka sugay weliba kuwa taabacsan sheekh mukhtaar oo iyagana weerar goosgoosa ku qaadaya wariyana sida cali muuse sida cali aad umahadsan tahay haddii macluumaadyo kasoo kordhaan dagaalka baydhabo ka soconayana intaan qadka warka ku guda jirnayaan markale kugu soo laaban doonaa xaalada magaalada baydhabo intaanan axmed oo ka bixin baydhabo isla maanta magaalada waxaa ka dhacay dil loo geystay gudoomiyihii guddiga amniga ee baarlamaanka soomaaliya waa baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo la tilmaamayo in la toogtay isagoo wada qorsho la xiriira ama uu waliba dadaal uu ku doonayay in lagu qabuujiyay xiisada halkaasi ka taagan wararka waxay sheegeen xildhibaanka la dilay uu waday dadaal la xiriira xal u helida rabshadaha ka soconaya magaalada baydhabo wuxuuna waday isku dayo uu ku doonayay in labada ciidan waa dhalinyarada hubeysan ee magaalada ku sugan iyo weliba ciidamada booliiska in la kala qaado oo si ay halkaa kaga yaraato ama in uusan magaalada dagaal kaga dhicin si dhaba looma oga cidda ka dambeeyay dilka xildhibaanka balse waxaa la tilmaamay in xildhibaanka la toogtay isaga oo weliba wadada laamiga xilliga lugeynayay wadayna dadaalo ku aadan in la yareeyo rabshadaha magaalada ka soconaya axmed dhinaca kale xaalada guud magaalada baydhabo waa sida hadda aan sheegnay aad ay u cakiran tahay waxaana dhacaya banaanbaxyo dadka qaar ayaana muujinaya taageerada u hayaan wadaadkan hadda dawladdu ay xirtay mukhtaar robo mar kale haddaan dib ugu laabno jabiga guud baydhabo iyo siduu ahaa aan dhegeystayaasha usoo gudbino maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan sheegaynaa ninka aa xirtay dad baa ka dambeeyo dadkaas waxay ku leeyihiin qofkaas xurnimadiisa inaa u soo celisid haddii u soo celin waysan waxaan leenahay annaga waa ka dhiidhiyaynaa haddii nahay shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya waan ka dhiidhiyaynaa haddii la soo daayi waayo sheekha waxaan leenahay ha noolaado sheekh mukhtaar roolow 91 waa ka soo gudubnay laakiin hataa dib nagu celinoya waxa ay ahaayeen qaar ka tirsan dad dibadbaxyo ka dhigaya tan iyo ilaa iyo saakay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed wixii xaalada baydhabo kusoo ziyaada waxaad markasta ka heli kartaa bogga internet-kan ku leenahay ee radio.com isla xaalada baydhabo kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi ayaa dalbaday in laga hortago rabshadaha ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay rijaal cabdi maxamed ayaa warkan dhamaystiraya kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaas cabdulqaadir shariif shuquna maye oo warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ayaa ku baaqay in la joojiyo banaanbaxyada ka socda magaalada baydhabo cabdulqaadir shariif shuquna maye ayaa dhaliilay shacabka magaalada baydhabo banaanbaxyada ka wada kuwaasoo kasoo horjeeda xiritaanka wadaadka sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur oo shalay dowladda soomaaliya ay sheegtay in laga soo xiray magaalada baydhabo waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo ammaanka magaalada baydhabo islamarkaana la joojiyo banaanbaxyada rabshadaha wata ee hareeyay baydhabo saacadihii lasoo dhaafay kuwaas oo ay jiraan dad ka badan 10 ruux oo ku geeriyooday wax walba oo kale waxa ay ku filan yihiin in si maamul ahaan in nidaam ahaan in loo maro loo xalliyo wixii xal ay tagto waxa weeye waa waxun baa nooga halaabaya waxun baa nooga khasaaraya hanti baa nooga burburaysa naf bini aadan oo qiimaha ay ilaahay agtiisa ay ka leedahay la ogyahay oo aanan dib loo soo celin karin ayaa nooga baxaysa khasaare walba oo maanta dhaca noocu doona ahaada waxa waa khasaare annagoo dhan dhammaan shacabka reer koonfur galbeedna soo gaaray marka waxaan rabaa in maskaxda la dejiyo maskax wanaagsan oo degan in lagu shaqeeyo laablakacay emotionka waxa waaye xoogaa in la joojiyo wax allaale wixii jiro waxa waaye oo la kala tirsanayo wixii qalad oo jiro la ogyahay waxaa jirta nidaam loo maro nidaam lagu xallin karo marka waxa ugu muhiimsan inaanu ka wada shaqeyno horumarka iyo dib u dhiska iyo shacabkeena inaan ku dhisno runtii xaalad kacsanaana ayaa weli ka taagan magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed waxaana qeybo ka mid ah magaalada laga maqlayaa rasaas goosgoosa oo ay ridayaan ciidanka booliiska maamulka koonfur galbeed ee ka howlgala magaalada baydhabo
iyo weliba ciidamo maleeshiyaad hubeysan kuwaas oo la sheegay in ay kasoo horjeedaan xarigga loo geystay wadaadka sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur. xaaladda magaalada baydhabo ayaa hadda ah mid ka duwan siyaabihii hore ee ahaan jirtay, waxaana dadka shacabka ah 24 saac ee lasoo dhaafay ay ku jireen xaalad adag maadaama aan la furi karin dukaanada wax laga iibsado. wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa xidhan maalintii labaad iyadoo booqasho rasmi ah oo maalintiisii labaad dalka uu ku joogo madaxweynaha dalkaasi Eritrea Asiyaasi Afwerki. wadooyinka xidhan ee muqdisho ka tirsan maalintii labaad waxaa ka mid ah wadada wadnaha Maka al-Mukarrama iyo qaybo ka mid ah wadada Sodonka, iyadoo lasoo warinayo in aysan isku gudbi karin gaadiidka rayidka, waxaana jira keliya in ay isticmaalayaan wadooyinkaasi gaadiidka mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa ciidamada ee ammaanka wadooyinka si weyn u adkeynaya. madaxweynaha dalkaasi Eritrea Asiyaasi Afwerki ayaa si weyn shalay loogu soo dhaweeyay magaalada muqdisho kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, waxaana la rajeynayaa Asiyaasi Afwerki madaxweynaha dalkaasi Eritrea in maanta oo Jimco ah gelinka dambe ee galabta inuu soo gabagabeeyo booqashadiisa dibna uu ugu laabto magaalada Casmara ee dalkiisa Eritrea. ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa dowladda dalkaasi Qatar waxa uu ku qanciyay in ay bilowdo mashruuca lagu dhisayo dekada Hobyo ee gobolka Mudug ku taala. Ubax Maxamed Nuur ayaa warkan faahfaahinaysa. wasiirka wasaaradda gaadiidka isgaarsiinta iyo dekada dowladda Qatar Jasiim bin Sayf Axmed ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay dowladiisu bilaabayso mashruuca dhismaha dekada Hobyo ee gobolka Mudug. wasiirka ayaa qorshe bilaabinta mashruucan ka sheegay kulan gaar ah oo ay wada qaateen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo booqasho rasmi ah ku joogay dalka Qatar. wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo kulanka qayb ka ahaa ayaa shaaca ka qaaday in wasiirka dekeduhu uu ra-iisul wasaare Khayre ka ballan qaaday in sida ugu dhaqsaha badan ay u bilaabmayso dhismaha dekada si ay uga faa'iideystaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. ra-iisul wasaare wuxuu kulan gaar ah la yeeshay wasiirka gaadiidka isgaarsiinta iyo dekadaha ee waddanka Qatar. xaaladahan waxaa ka mid ah horumarinta mashruuc hore loo ballan qaaday iyo bilaabidda dardargelinta mashruucii lagu dhisayay dekada Hobyo looga dhisay. mashruucaas waa mashruuc ay ballan qaadeen, ay tageen, soo arkeen, soo fiiriyeen, maadaama maalin hore ay dhowr bilood ka hor tageen. ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku adkeeyey kana codsaday in mashruucii la bilaabo sida ugu dhaqsaha badan. mashruuca hadda ayaa bilowgiisa mashruucaas bilaabanaya oo feasibility study iyo shaqooyinka la rabay iyo wixii oo dhan la howlgalaya. marka mashruucaas waxaa mid si gaara ra-iisul wasaaruhu ugu adkeeyey. wasiirka uu la kulmay, wasiirkuna oo ballanqaad shakhsiyan oo ka sameeyay arrintaas oo ballan qaaday inuu maanta dabagala hadda laga bilaabo mashruucaas sidii loo hirgelin lahaa, loo fulin lahaa, looga maradhalin lahaa, laga wada shaqeynaa. marka runtii waxay ahayd shir gaara oo ka baxsan shirarkii aan lahayn ra-iisul wasaaraha waddankan iyo wasiirada kale lahayn. marka waxay tusaysaa ahmiyadda ay leedahay mashruucaasi leeyahay sida dowladda Soomaaliya ballanqaadka dhexdhigga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa bishii Janaayo ee sanadkan dhagax dhigay mashruuca dhismaha dekada Hobyo, waxaana horaantii bishii Juulaay qiimeyn ku tegay wafdi ay hogaaminayso wasiirka dekada Maryan Awees oo ay qayb ka ahaayeen khubaro ka socda dalka Qatar. odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ka soo jeeda oo kulan isugu yimaaday magaalada Baydhabo oo ahaa mid degdeg ah waxa ay ka digeen in ay sii socoto rabshadaha weli ka dhacaya ama ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. odayaashan ayaana ku baaqay in lagama maarmaan ay tahay in hadda si degdeg ah loo soo afjaro rabshadaha ka soconaya maalintii labaad magaalada Baydhabo taa oo ay ka dhalatay xarigii Mukhtaar Robow Cali Abuumansuur. waxaa jira in dabadbaxayaal careysan ay magaalada Baydhabo ay isugu soo baxeen iyadoona dhagxaan tuuraya, waxaana xusid mudan in goobihii ganacsi ee Baydhabo ay hakad galeen maalintii labaad oo xiriira. odayaasha ayaana waxa ay dalbanayaan in arrintan la qaboojiyo
iyadoo ay macquul ay ka dhigi karto in xaaladda magaalada baydhabo ay kasii darto haddii ay sii socdaan rabshadahani. odayaasha sidoo kale waxa ay ka digeen in rabshadaha haddii ay sii socdaan in ay sababi karto dhimasho iyo dhaawac hor leh oo ay dad kale soo gaarto haddii aanan laga hortagin rabshadaha ka dhacaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed. walaalayaal waxaan idin sheegaynaa odayaashiinnii baanu nahay wax kastoo san dhibaaya ayaana dhibaaya dad meel iska fadhfadhiya ma ahin shirkii shalay galnayba xali waaga noogu baryay saacaddan aanu joognaa nabadgelyada ha la ilaaliyo ilaa doorasho mataqaanay jawi nabadeed laga helayo in sheekhuna ayaa madaxweyne ka ah dalkan. midda kale hal kelmadoo gaaban ayaan rabaa inaan ku daro wasiirada koonfur galbeed oo dowladda faragelin laguma haysan leh ha ka joojiyaan arrintaas. number 2 dhibaatada koonfur galbeed dowladda federaalka ka hayd oo liisla ogaa aan gabdanaay bilhabati babaha maqaryaasha walaha tumadiha marku baydo kooylay muqtar roobo dambiili ka waali ma sharaho ku reebaa ku baad leen qodada oo hoglinka maquuniyaa maat oo gorwaana. odayaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayay ahaayeen kuwa uu ka digayay in rabshadaha ay ka socdo magaalada baydhabo ay sii socdaan iyagoona ku baaqayay in gebi ahaanba lasoo afjaro rabshadahaasi, iyadoo waxay sud mudan tahay in xildhibaan ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo lagu magacaabayay cabdishakuur buulle oo ka mid ahaa xildhibaanada maamulkaasi lagu toogtay saakay magaalada baydhabo. wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi oo ka kooban labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa gaaray dalkaasi turkiga iyagoo halkaas uga qaybgalaya shirka baarlamaanada adduunka oo halkaasi ka dhacaya. gudoomiyaha cabdi xaashi iyo wafdigiisa waxaa halkaas kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaasi turkiga iyo mas-uuliyiinta xukuumadda ankara. wafdigan ayaa inta ay ku sugan yihiin turkiga waxa ay halkaas kulamo gaargaar ah kula qaadan doonaan madaxda baarlamaanka adduunka iyo qaar ka mid ah madaxda dalkaasi turkiga. halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda risaale ee muqdisho. ugu dambeyn, dowladda dalkaasi yemen iyo xuutiyiinta dalkaasi ka dagaalanta ayaa waxa ay gaareen heshiis hordhaca iyagoo ku sugan magaalada stockholm ee dalkaasi sweden. labada dhinac ayaa ku heshiiyey in xabad joojin ay ka dhaqan gasho magaalada istaraatiijiga ah ee xudeeda, iyadoona la faray labada dhinac waa dowladda dalkaasi yemen uu hogaamiyo cabdirabbi mansuur haati iyo xuutiyiinta dalkaasi in magaaladaasi gebi ahaanba ay faarujiyaan, iyadoona qaramada midoobay dalbatay in ay halkaas ay geynayso ciidamo gaara oo qaramada midoobay hoostaga si ay qaramada midoobay u gaarsiiso gargaar deg deg ah dadka ku nool guud ahaan dalkaasi yemen, gaar ahaan magaalada xudayda oo ay qaramada midoobay ku sheegtay in dalka yemen ay ka jirto macluul baahsantii ugu xumeed ee adduunkan soo marta. dadyooga arrimaha carabta ka faallado gaar ahaan dalkaasi yemen ayaa waxa ay sheegayaan in ay adag tahay in xabad joojin si rasmi ah hadda ay uga dhaqan gasho magaalada xudayda, inkastoo labada dhinacba hadda ay aqbaleen in magaalada xudayda gacantooda ay ka marnaato. guud ahaan waa naga intaa war wixii dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray ee aad idaacadda risaale ee muqdisho ad ka dhageysanayseen, balse ciddii uu seega ama dhex kala qabsatay waxay mar kale ka jaleeci kartaa bogga internetka aan ku leenahay ee radio risala.com ama .net. idinna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo dhegeysiga warkayaga.